Tababaraha Barcelona oo hadal la yaab leh ka soo saaray tartanka horyaalka La Liga. Tababaraha Barcelona Hans Flick ayaa sheegay in kooxdiisu ay diiradda saareyso kaliya waxqabadkooda kadib markii ay Axadii 4-1 kaga adkaadeen Sevilla, taasoo ka dhigtay inay 2 dhibcood u soo jirsadaan hogaamiyayaasha La Liga ee Real Madrid. Robert Lewandowski, Fermin Lopez, Rafinha iyo Garcia ayaa shabaqa soo taabtay, iyadoo Barca ay ka faa'iidaysatay barbarihii Madrid derby ee Sabtidii, taasoo keentay in saddexda kooxood ee ugu sarreeya La Liga ay isku jiraan 2 dhibcood oo keliya. Atletico Madrid ayaa weli kaalinta labaad ku jirta, iyagoo 1 dhibic ka sarreeya Barcelona oo kaalin saddexaad ku jirta. Kooxaha kale dan nagama gelin ayuu yiri Flick shir jaraa'id oo uu qabtay kadib usbuuc uu dib u soo noolaaday tartanka horyaalka Spain. Shaqadeenu waa inaan dadaalka saarnaa. Maanta si wanaagsan ayaan u ciyaarnay. Waxa kaliya ee aan rabno waa inaan nafteena diiradda saarno, ma ahan kooxaha kale. Barcelona ayaan laga badin 11 kulan oo xiriir ah tartamada oo dhan sanadkan 2025, iyagoo 7 ka mid ah kulamadaas dhaliyay 4 gool iyo ka badan.